madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed ee Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta lagu soo dhaweeyay gegida ay diyaaraduhu ka haadaan ee magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiin tiro badan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu horkacayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyagu kaga hortagay gegida ay diyaaraduhu ka haadaan International Airport. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu helinayo madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar ayaa la filayaa inay xadhiga ka jaraan akaademiyad goboleedka afka Soomaaliga ee AGA taasi oo lagu ilaalin doono afka Soomaaliga iyadoo uu hirgeliyay madaxweynaha dowladda Djibouti.